dagaal xoogan oo u dhaxeeya ciidamada dawladda Itoobiya iyo kooxaha hubeysan ee ka soo horjeeda ayaa maanta ay ka qarxay deegaano badan oo kamid ah caasimadda magaalada Muqdisho ugu yaraan 12 ruux ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen dagaalkan oo xilligan ka soconaya magaalada waxaana dadka dhintay kamid ah sida la sheegay ciidamada Itoobiya oo lagu arkay meedadkooda deegaano ay kamid yihiin Black Sea iyo warshada caanaha dagaalkan xoogiisa ayaa ka dhacaya deegaanada Black Sea Baarubax iyo qaybo kamid ah xaafadaha Xamar Jadiid ee degmada Wardhiigle ee magaalada Muqdisho ciidamada Itoobiyaanka ayaa ku hubeysan darbaabaadka gaashaaban iyagoo u isticmaalaya dadka isla markaana qoryaha waaweyn ku ridaya goobaha ay ku sugan yihiin dadka rayidka ah iyadoo la xaqiijin karin hadaba dagaalkan qasaaraha xoogan uu geystay dadka rayidka ah iyo dhinacyada dagaalamay ayaa haddana waxa madaafiic waaweyn ay ku dhaceen deegaanka Baramuudo halkaas oo ay ku geeriyoodeen ugu yaraan 6 qof oo la sheegay qaarkood inay ahaayeen isku qoys qof goob jooga ah oo ku sugan deegaanka Baramuudo ayaa ka waramay waxa indhihiisa uu ku arkay ilaa iyo 10 hoobiya xogtana xaafadda Baramuudo gaar ahaan xaafadda Dawceel Hindi ilaa iyo hadda inta aragnay qasaaraha guriga uu ku soo dhacay horta ilaa iyo 5 qof oo geeriyootay hal qof ka badbaadintii guriga ku jirtay guri kale taasina ku soo dhacana hal wiilna ku dhintay habartii iyo 3 cunug kale ku dhaawacmay dad aad u fara badan ayaa la arkaya iyagoo ka cararaya guryahooda kuwaasi oo ku sii jeeda deegaanada Waaberi iyo kilomitir 4 halkaasi oo ka amaan roon deegaanada haatan dagaalku uu ka soconayo guud ahaan waxaa xirmay hawlihii adeegyada suuqa weyn ee Bakaaraha ee magaalada Muqdisho iyadoo aysan jirin hal albaab oo furan oo suuqaasi kamid ah sidoo kale israsaasayn xoogan ayaa laga maqlayaa isgoyska Holowdaag ee magaalada Muqdisho halkaas oo ay ku dagaalamayaan ciidamada dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya iyo kooxaha hubeysan ee ka soo horjeeda lama oga dagaalka Holowdaag qasaaraha uu geystay dadka rayidka iyo dhinacyada dagaalamaya sidoo kale ciidamada Itoobiyaanka ayaa la sheegay inay ka soo ruuqaansadeen fariisimo ay ku lahaayeen wasaaradii hore ee gaashaandhigga iyo waliba garoonka Stadium Muqdisho ee ciyaaraha halkaas oo ay doonayaan inay uga qayb qaataan dagaalada ka soconaya deegaanada Baarubax iyo Black Sea dagaalka ayaa qarxay abaare 7 saac ee duhurnimo ee maantay waxaana madaafiic dhowr ay ku soo dhacay qaybo kamid ah suuqa weyn ee Bakaaraha inkastoo wax qasaaraha ay sagaysan goobaha madaafiicdaasi ay ku dhaceen ayaa waxa kamid ah iskoolkii hore ee Xamar Jadiid oo aad ugu dhow suuqa daawada ee suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho inkastoo dagaaladani ay yihiin kuwa soconaya ayaa haddana la xaqiijin karin qasaaraha inta uu leeyahay sidoo kale dhinaca dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya ayaysan ka soo bixin faahfaahin ku aadan dagaalka maanta ka qarxay caasimadda madaafiic waaweyn ayaa ku dhacay qaybo badan oo kamid ah deegaanada magaalada Muqdisho kuwaasi oo kala fogfog madaafiicdaasi ayaa la sheegay inay ridayaan ciidamada dawladda Itoobiya howlgalka maanta ciidamada Itoobiya ay ku dhaqaaqeen ay ka sameynayaan deegaano kamid ah magaalada Muqdisho ayaan la ogeyn waxa uu ka dambeeyay balse waxa la hadalhayay maalmihii ugu dambeeyay in suuqa weyn ee Bakaaraha iyo deegaano kamid ah ciidamada Itoobiya ay damacsan yihiin in howlgal ay ka sameeyaan dhanka kale maxkamadda ciidamada gobolka Banaadir ayaa maanta ay xukun xarig ah ku riday qaar ka tirsan ciidamada dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya ciidamadan oo gaaraya 10 askari ayaa lagu eedeeyay in falal burcadnimo ah ay ka geysteen magaalada kuwaasi oo ay kula kaceen dad rayid ah waxaana lagu xukumay ciidamadaasi min hal sano oo xabsi ah Maxamed Maxamuud Adawaa Radio Garowe magaalada Muqdisho